waxaynu naqaanaa wakhtigan baqhdaad maalinta la qabsaday iyo geeridii salaaxaddiin waxaa u dhexeeya 66 sannadood mise 67 sannadood. salaaxaddiin 589 hijriyaduu geeriyooday, baqhdaadna waxaa la qabsaday 556. taa macnaheedu wax weeyaan 67 sannadood baa u dhexeeya geeridii salaaxaddiin. salaaxaddiin sidaynu waa naqaano dowlad weyn oo islaamiya buu aasaasay 569 hijriyada. muddo 20 sannadood ayuu xukumayey. wuxuu mideeyey markaa caalam aad u ballaadhan oo muslimka ka mid ah. dowladdaasi waxay ka telinaysay markuu dhiman doono allah u naxariistay salaaxaddiin alayuubi waddanka masar la yidhaahdo, falastiin, suuriya, turkiya koonfurteeda, xijaas iyo yaman, inahaasoo dhan bay markaa ka telinaysay oo gacanta ku hayay. wuxuu dib u celiyey salaaxaddiin saynu wada ogsoonnahay weeraradii ay reer yurubku qaadeen ama dowladii kiristanka ee yurub dagaalladii ay ku qaadeen ayuu dib u celiyey. waxaanu mar kale dib u xoreeyey bayt almaqdis oo waqactu xatiin kadib 3 bilood kadib ayuu wuxuu xoreeyey bayt almaqdis. salaaxaddiin alayuubi markaasi wuxuu dhintay baynu nidhi isagoo masar iyo shaam iyo xijaas iyo yaman iyo ciraaq qayb ka mida iyo turkiya qaybo ka mida iyo libiya iyo nawba, inahaasoo dhan isagoo ka taliya ayuu geeriyooday. kiristankii markaasi soo duulayna ay ku hadheen dacal yaroo xeeba oo raacsiisan lebnaan iyo dacalladeeda sii raacsiisan. hase yeeshee geeridii salaaxaddiin alayuubi, salaaxaddiin wuxuu ahaa nin muslima oo akhlaaq fiican oo dhaqan toosan oo islaamiya leh, culamana ay agtiisa taagan tahay. waxaa nin mujaahida oo la yidhaahdo 20kii sannadood ee uu xukumayay waxaan filayaa inay taarikhyahanadu sheegaan 16 sannadood inay khaymadiisu ay ka dhisnayd goob dagaal. yacnii qaa'id caskari oo ciidamo hoggaamiya ayuu ahaayoo aad muxanak u ah. wuxuu ahaa rajul siyaasiya oo masar intuu ra-iisul wasaare ka noqday dabeetana dowla alcabiidiya oo alfaatimiya, dowladdii shiicada sheegan jirtee meesha intuu ka takhallusay dib u soo nooleeyey sunnada waxa loo yaqaano. idan qaa'id caskariya iyo qaa'id siyaasiya labadaba nin aabuu ahaa iyo nin muslimoo taqiyo alla ka cabsi badan. markuu geeriyooday may dhicin shakhsiyad isaga la midoo booskiisii buuxisa. dhibaatooyinka duwalkii islaamigaa soo qabsadayna waxaa ka mid ahaa inta badan ee cusuurtii dambe oo dhan may dhismin dowlad mu'asasaad ah ee waxay dhismay dowlado hadba ninka xukumaa noocuu u egyeela ula ekaanaya. haddii nin cadiimoo weyni u soo baxana dowlad weyn noqonaysa, haddii waaxid akhasunaasi uu qabsadana burburku uu ku dambaynayo. salaaxaddiin alayuubi markuu meesha ka baxay ee geeridii u timi, addowla alayuubiya way burburtay. 17 wiil buu dhalay oo uu ka tegey, qaybiba dhan bay goosatay. nimankii ay isaga walaalada ahaayeen qaybay goosteen. umaradii gobollada kale xukumaysay ninba magaalu goostay. si fudud waxaa u duntay dowla alayuubiya. dabeetana waxaa ku dhacay burbur ay dib uga soo kaban weydo, bale xad colaaddii iyaga u dhaxaysay ay keensato inay iyagu isu adeegsadaan masiixiyiinta oo badharhka qaarkood ay kula gorgortameen dowladihii masiixiga ee markaa dagaalada ku soo jiray inay baytalmaqdis u celiyaan si ay hebel kale u qabsadaan, oo dib ay u dhacdayba inay qabsadaan baytalmaqdis nimankii kiristankaa. wadciga caynkaa u eg ee alqaadi alfaadil sheekhii la odhan jiray isagoo ka murugaysan oo nimankii uu ka tegey salaaxaddiin la hadlaya buu wuxuu yidhi: ama hada albayt faina alaabaa'a minhu itafaquu famalakuu waina alabnaa'a minhum ikhtalafuu fahalakuu waidaa garaba najmun fama alxiilatu fii tashriiqihi waidaa badaa takhriiqun fii thawbin famaa yaliihi ila tamsiiquhu wahayhaata an yasudda calaa qadri طariiqihi waqad qutira طariiquhu waidaa kaana allahu maca khasmin calaa khasmin faman kaana allahu macahu faman yaqdir calayhi. weedhaha siya uu ku tilmaamayo
reerka kan buu leeyay yacni ayuubiyiintii aabbayaashii way midoobeen buu yidhi oo duniday xukumeen dhashiina way kala yaacday dabeetana way halaagsameen buu leeyahy xidig hadduu dhaco yaa xeelad garanaya buu yidhi dib loogu soo saaro uu dib u soo iftiimi karayo maradii dilaacdaa waa sii googo'daa unbuu leeya waa kala tagtaa yacni wuxuu sawirayaa markii horena salaaxaddiin iyo walaaladii iyo raggii la socdaiyo ciidamadiisu dad wada socda bay ahaayeen dabeetana carrigoo dhan bay qabsadeen markuu dhintay dhashiisii iyo walaaladii iyo wixii ka dambeeyeyna way isqabteen dabeetana way halaagsameen wadcigoo sidaasiya ayaa baqhdaad la qabsaday dabeetana calaa haada alasaas dowladdaa weyn ee tataarkaa ee min poland ilaa baqhdaad ilaa china ilaa kuuriya ka talinaysa dhan bay taagantay dhankan kalena waxaa taagan muusil oo madaxtooye leh xams oo madaxtooye leh xalb iyo dimashik oo madaxtooye leh miya farqiin oo madaxtooye leh maxaanku idhaahdaaye yacni magaalo kasta oo magaalooyinka shaam iyo jaziira alcarabiya iyo dhulkaa ku faafsan oo meel walba dowlad yaroo gaari ka talinayso dowladda intaa leeg ee ballaca intaa leeg oo la yidhaahdo hoolako mararka qaarkood waxay ku tilmaamaan mu'arikhiinta qaarkood ciidamadu gacanta ku watay 250 kun oo caskari buu watay bay yidhaahdaan dee qoladan kalena waa magaalo intay doontaba magaalo ha leekaato waa hal magaalo ah ka weyn baa markaasi ugu xoogga buuraa waa ka isku haystay xalab iyo dimashik oo laba magaalo haysta ayaa markaa naasirka kaasaa ugu buuraa calaa haada alasaas ayaa cid waliba awraaqdeeda siyaasiga ku tartiibsatay holako baqhdaad buu ka guuray wuxuu qabtay hamadaan waa bershiya eeraan qalcad shaha la yidhaahdo xaggeedu qabtay oo buxayrada la yidhaahdo ormiya waa waqooyi galbeed ee eeraan bay ku taallaa meelaha meel ka mid ah qalco ku taal buu degay wixii uu xoolo ka soo qaatay magaalada baqhdaad iyo qusuurtii boqortooyadii cabbaasiyiinta iyo qasnadihii baytilmaalka muslimiinta iyo guryihii tujaarta waayo waa magaaladii caalamka ugu dad badnayd baqhdaad marka kan waa caasimadda dunidoo dhan ugu dad badan bay wakhtiga ahayd iyo magaaladii baqhdaad la odhan jiray tujaarteedii iyo wixii xoolo laga soo dhacay ayuu wuxuu ku soo xaraystay qalcaddaasi oo meel hawo yaroo muctadila leh oo uu ciidamadiisana dejisan karaa wuxuu bilaabay markaa ciraaq maadaama uu madaxdeedii hayo siduu tallaabada labaad u bilaabi lahaa oo ah shaam iyo dhulkaasi sidii uu qabsan lahaa waa syriya siduu dagaalka ugu bilaabi lahaa inuu daraaseeyo dadka muslimiinta ah iyo magaalooyinkaasi islaamiga ah niqaati dacfigooda ama meelahay godololada ku leeyihiin iyo meelahay ku xooggan yihiin halkaas ayay isaga arrini ka joogtaa ama wadciga kale haddaynu eegno hal nin oo maya farqiin magaalada la yidhaahdo ka talin jiray waa kaamilkii labaad alkaamil moxamed athani alayubiy kaamil horaa jiray alkaamil alayubiy la odhan jiray kani waa kii labaad magaaladaasi miya farqiin ninka la yidhahdo ninka ka tala jiray miya farqiin waa magaalo iminka saliva iyo magacaynkaasay leedahay turkiya ku taalla waa diyaari bakr kurdidu qaybtan ay ka degto turkiya waa magaalo ku taalla magaaladaasi ninkii madaxda ka ahaan jiray ee agagaarkeeda ayaa baqhdaad intaanay dhicin wuxuu arkay caalamulislaami inuu khatar ku jiro dabeetana wuxuu u soo kicitimay ayuubiyiinta raggii ahaa ee kala googo-ay isaguna waa nin ayuubiya inuu midayn karo oo uu isu keeni karo dabeetana wuxuu yimi magaalada dimashik oo caasimaddii ugu weynayd markaa shaama dimashik waxaa haysta annaasir yuusuf alayuubi ninka la yidhaahdo ninkaasuu u yimi dabeetana wuxuu ku yidhi ina haؤulaaءi tataar laa tufiidu macahum mudaara walaa tanjax fiihim khidma walaysa lahum gardun ila fi dihaabi اlanfusi wاlistiilaa'i cala اlbilaad wamowlaana الsulطaan qad badala lahum alamwaala min sana 42 ilى اlyowm
boqorkii meesha tan haystuu la hadlaya wuxuu leeyahy war tataarku niman muslaxasho yaqaana ma aha waan kuu shaqaynaya xataa lagagama nabadgala buu leeyahy dan kaloo ay leeyihiin ma jiro inay bini aadamka tirtiraan mooyaane iyo dhulka iyo hantida inay qaataan mooyaane u fiirsa buu leeyahay boqorkii dowlal cabaasiya haystay min 642 laga soo bilaabo buu leeyahay ilaa iyo hadda oo yacni 656 ilaa hadda buu leeyahay xooluun buu waday oo wuu muslaxayay uun muxuu ka faa'iide ka dhacay buu leeyahay waxba lagama helin war waxaan kugula talinayaa buu leeyahay kalaamu badrudiin ha maqlin badrudiin waa muusalkii haystay ninka muusal magaalada la yidhaha ciraaq ku taalla haysta badrudiin lu'lu ninkii la odhan jiray khaa'imiinta ugu waaweyn ka tirsanaa warkaa warkiisa ha dhegaysan buu leeyahy ergeyga aad diratay ee wasiirka ku ah ee la yidhahdaa azayn alxaafidi isna warkiisa ha dhegaysan buu leeyahy waxay rabaan buu leeyahy inay kaa dhigaan khubs iyo maciish raashin la cuno inay kaa dhigtaan bay rabaan buu leeyahy taladaydu waxay tahay buu leeyahy nimankaasi tataarkay u yihiin rusul oo ay iyagay dooranayaane adiga ku dooran maayaan buu leeyahy waxaanay rabaan inay kaa saaraan un boqortooyadaada ee nin yahow anigu waxaan go'aansaday inaan dagaalamoo dhinto naftayda ilaahay dartii baan u bixinayaa ee ciidamada aan isku darro waa baqdaad intaan la qabsan oo baqdaad aan u hiilin noo gargaarna buu leeyahy labadeenna ciidan hadduu israaco aynu baqdaad gaadhno waynu dhicin karaynaa baqdaad gacanteennay gelaysaa haddii aynu boqorka markaa sultaankii muslimiinta aynu badbaadinno hadhowna dee niman u hiiliyey boqortooyadii islaamigaa baynu noqonaynaa gacan weyn baynu helaynaa haddii aynan ku gaadhinna war waa u aargoynaynaa buu leeya tataarka waa celinaynaa waxaa ka muuqata ninkan alkaamil moxamed alayuubi inuu kalsooni ku qabo ciidamada muslimiinta isagoo haysta iyo kuwan shaam jooga haddii la ysku daro inay difaaci karaan tataarka waxaa kaloo uu arkayaa difaacu inuu baqdaad ka bilaabmay inaan loogu imanin miyafaarqiin iyo dimashq inaan loogu imanin ee xagga hore inuu dagaalka ka galaan ama naasir isagu sidaa ulama muuqato naasir wuxuu arkayaa arrin ka gedisan halkuu ninkani ka arkaya baqdaad hadday dunto inay iyana dumayaan naasir sidaa ugama muuqato naasir wuxuu isku dayay inuu ciidamadiisa oo nimankii madaxda ahaa soo ururiyo oo war weydiiyo war ninkaasi intaanu inoo imin ma iska celinaa mise waa la shiraa waxaa laga baqayaaba xataa in lala shiro ciidamadiisa intii badnayd waxay isku raaceen inay la shiraan laakiin kuwii uu ka digayay qaar ka mid ah azayn alxaafidi iyo saalix nuuraddiin iyo ashraf ibnu lmansuur kii saaxibu xims ka taliya iyo xumus kuwaasi waxay u arkayaan inaan ninkaa lala shirin wargaalka weyne hadduu maqlo ninkaasaynu la kulannay inagu inagu durdurinayaa bay leeyihin haynoo soo dhowaynin isagana meesha waxaa jira xisbi hoose oo tataarka la shaqeeya tataarku wakhtiga kan waa addawla alcaalamiya alkubraa waa alqutb alwaxiid waa dowladda keliya dunida wakhtiga ka talisa sidaa maanta dowladaha waaweyn ee dunida ka taliya ay u leeyihiin axsaab iyo afkaar wadannada yaryar ka furan oo fikraddooda hirgelinaysa oo wixii iyaga ka soo baxa ku shaqaynayo qaabkaa ayinbay wakhtiga kanna ahayd dowladdii weyneed ee tataarka markaa waxay leedahay rag badan oo afkaarteeda soo dhowaynayo oo leh nimanka ha laysu dhiibo waxbay layna yeeli maayo aan la dhaqanno saaxiib la noqonno halka aan kala wadno dad badan oo leh baa meesha jira arrintii may dhicin ninkii la odhan jiray almelik annaasir wuu aqbalay inuu ninkan soo dhoweeyo inay wada hadlaan laakiin wada hadalkiisii sidii uma muuqanin ee waxa buu yidhi niyo waxaanaad sheegaysaa wax soconaya maaha nimankan tataarka aniga weli waaba isku yaro fiican nahay
adiga cid kuu shafeecda aan diro oo holaaka u tagta oo kaala hadasho adigana inaan waxba lagu yeelin dee aan sidaa yeella buu yidhi dagaalkan iyo baabkan aad sheegaysan aan iska dayno kaamilkii wuxuu ku yidhi ji'tuka fii amri diini wa tucawidanii canhu biamrin dunawiy amrin diiniy ayaan kuula imi buu leeyahy adna beddelkeeda waxaad iiga warramaysaa adduunyo sidii loo heli lahaa baad iiga warramaysaa markuu arkay inaanu aqbalay buu yidhi haddaba iska noqo haddii uu tataarku ku soo doonto markaasaan ciidamo kuu soo diraya ku caawiyo oo wax kaa dhiciye warkoo halkaa maraya ayaaba baqhdaad duntay yacni waxaan rabaa intaynan hoolaako iyo socodkiisa ka warramin inaynu fahamno wadcigu halkuu marayay iyo siduu u ekaa qoladan oo wada hadalkaa wadda oo nina uu leeyahy war aan jihaad tagna nina uu leeyahy aan kaa muslaxo oo aan kuu soo shafeeco qaado ayaaba waxaa yimi khabarka odhanaya baqhdaad in la qabsaday dee ninkii awalba lahaa aan kuu shafeeco qaado hadduu maqlo baqhdaadba waa la qabsaday warkii muxuu noqonayaa waa warcad kaamil wuxuu go'aansaday inuu noqdo se uu dagaalamo kooxdanna uu iskaga tago noqo markuu is yidhi baa waxaa la kulmay sheekhii la odhan jiray ibnu shadaad ibnu shadaad baa wuxuu ku yidhi alkaamil alayuubiyi buu wuxuu ku leeyahay inaad melik naasir u timaaddo horta waad asiibtay buu leeyahy fikraddaasi fikrad xun may ahayn laakiin noqoshadaadu fikrad saxa maaha buu leeyahy oo maxaan yeelaa war naasir yuusuf hore u dhaaf buu leeyo masar qabo iyo nimankii mamaaligta ahaa masar dowlo cusub baa ka bilaabantay oo dowla layuubiya way dhammaatay dowlo mamaalik la yidhaahdaa markaa ka soo bilaabantay dhaaf buu yidhi kanoo dowladdaasi u gudub kaamil baa wuxuu yidhi waxaan ka baqay naasir qalbigiisa iyo baqashadiisa waana col qolada ah marka haddaan xaggaa usii tallaabo inuu isaguba dagaalkan ugu qaado baan ka cabsanayaa buu leeyahy sidaa awgeed masarna uuma gudbi kara buu leeyahy ibnu shadaad baa wuxuu ku yidhi haddaba intaad miyaa faarqiin ku noqoto kanaad leedahay wuu baqayaa carruurtaada iyo reerkii iyo waxoo dhan intaad soo kaxayso isaga dulkeed oo dhan war waa kuwan waxaygii oo dham iyo waan kula dhimanaya magaaladiina madaxu yeel laakiin taasna muu qaadanin waayo wuxuu arkayaa ninkani inaanu ahayn nin marnaba u soo jeeda dagaal marka qadiyaddu markay halkaa maraysay kaamil wuxuu ku noqday magaaladiisii hoolaako iyo ciidamadiisiina koox yar oo ilaalisa ama waxoogaa ciidan uu baqhdaad kaga dul tegay laakiin ciidamada intii badnayd eeraan waqooyigeedu ula kacay waxaa bilaabmay dowladihii yaryaraha ee islaamiga ahaa iyo raggii ka telinaya madaxda ahayd wufuud inay soo wada diraan ama iyagu yimaadaan iyagoo madaxweynaha cusubi guusha uu gaadhay ku tahaniyadaynaya maxaa la tahaniyadaynayaa 1 milyan oo muslima oo baqhdaad lagu xaaqay iyo caasima alkhilaafa alislaamiya oo tirtirantay tahniyadeeday u socdaan markaa waxaa la tahniyadaynaya maxay hoolaako waa ninkaasi gaalka ah ciidankiisa wuxuu soo kaxaystay isagoo 38 jira waxaanu ku dhintay gebigiiba 48 jir meelahaasaan filaya hooyadii kristan nastuuriya bay ahayd xaaskiisuna waa kiristaanad iyaduna xaaskan hadda aabbihii buu ka dhaxlay aabbihii baa qabi jiray aabbihii markuu ka dhintuu isna dib u guursaday hoolaako madhabkiisa diinigiina waa madhabka rawxaaniga ah ee arwaaxda iyo shayaadiinta iyo beliya baaskaasi in la caabudo oo 1 milyan oo muslima dhiiggooda ku faraxashay magaalo qura ma aha intuu dad soo laayay waxaan ka warramayaa waa maxay waa baqhdaad keliyaa la leeyahay
min 800,000 ilaa milyuun ayaa la gaadhsiinayaa dadka qaarna way ka badiyaan mu'arikhiinta qaarkood ayaa wufuuddii caalamulislaami ka socotay soo socotaa iyagoo raba inay tahniyadeeyaan waxaa yimi amiirkii haystay magaalada muusa la yidhaahdee ku taalla ciraaq oo badruddiin lu'lu waa ninkii uu lahaa alkaamil waar badruddiin warkiisa ha dhegaysanin ayaa u horreeyo soo socda oo kaalmaynaya oo tahniyadaynaya waxaa yimi mantiqat alanaadool ama turkiya qaybo ka mid ah siiba wasti turkiya bartamaheeda labadii ninee ka talinayay dowlatu salaajiqa alislaamiya ka soo hadhay ka kaws athaani iyo qalj arsalaan araabic labadaasaa yimi oo iyana hoolaako ku tahniyadaynaya sida wuu galay culammadii muslimiintii iyo boqorkii muslimiinta iyo waxaaba markii la biraynayay sidii uu gowracay waxaa kaloo yimi al-ashraf ilayuubi nin isna ayuubiyiintii ka mid ah oo haysta magaaladan xims la yidhaahdo ee hadda dagaalladu ka socdaan waxaa kaloo yimi oo isagu wafdi gaara soo diray annaasir yuusuf oo ah amiiru xalb wa dimashq waxaa awow ruma u ah salaaxaddiin alayuubi salaaxaddiin alayuubi kuu awowga u yey inankiisii buu soo diray oo uu hadyade u soo dhiibay oo uu leeyahay bogaadi muslimiintaasi la jebiyey oo weliba dana kalena wuu soo diray dadkii muslimiinta ee madaxda ka ahaa ciraaq waqooyigeeda iyo shaam iyo turkiya iyo mantiqada intaa leeg waxay yimaadeen iyagoo holaako ku tahniyadaynaya jabkii uu muslimiinta jebiyey amaa holaako dhankiisa haddaynu ku noqonno waxay yidhaahdaan laba mushkiladood baa markaa isaga hor taallay midi waxa weeyaan nin uu u arkayo inuu isagu mucaahadaadkiiyo waxa kan aanu raacsisnayn oo luqada casrigan lagu hadlaynu odhan karno irhaabi buu ku sifeeyey inuu yahay oo isagu u baahan muslimka dhabta ee samaaxada iyo nabadgelyada ka warrama aan ahaynee muslimka xag jirka ah waa alkaamil moxamed alayuubi iyo miya farqiin magaaladiisii la odhan jiray maya faariqiin mushkiladda ninkaa inuu meel ku hubsado taasi waa dhan maya faariqiin magaaladan la yidhaahdo iyo alkaamil moxamed alayuubi waa inuu meel ku hubsado magaalada tani maya faariqiinta lagu sheegayo waa dhulkii cumar binulkhadaab furtay cahdi saxaaba 18 hijiriyada ayay muslimiintu meesha tan furteen waxaanay ku taallaa baynu nidhi buxayrada waan la yidhaahdo ayay ku taallaa dhinaceeda galbeed waa sharqi turkiya waa turkiga dhankiisa bari bay ku taallaa ninkan kaamil moxamed la yidhaahdaa markaasi turkiga berigiisa mantiqadaasi siiba mantiqat aljaziira loo yaqaano jaziiradu waa labada webi ee dajle iyo furaad inta udhaxaysa inahaas buu ka talinayay oo waqooyiga ciraaq oo galbeedka xiga iyo shimaali sharqi suuriya iyo diyaar bakri in ku beegan inaha weeyaan intuu ka taliya ninka kani taasi waa mushkiladda koowaad oo magaaladaas iyo wixii laga yeelayo iyo ninkaasi mushkiladda labaad waxay yidhahdaan waa mushkilad taafih oo ah boqorradan iyo waxaan u yimi nin waliba wuxuu rabaa meeshii uu haystay inuu daayo oo uu uga wakiil noqdo uun dowladda weyn inuu saaxiib la noqdo wakiil ka noqdo oo meelahaasi ka taliyo holako waa nin daki ah waxa uu u fiirsaday qadiyaddan siduu u maamuli kari lahaa kow ninkan loo taag la'yahay dagaalka doonaya wuxuu go'aansaday inuu u diro rasuul ergey
ergeyga gaarka ee dowladda weyn ka socda in loo diro. ergeygan gaarka ahi wuxuu sidaa war sheegaya fikraddan daa'ishka ama fikraddan mintidnimada inuu ka noqdo, oo dadkii kaloo dhammiba waa kuwa tahniyadaynaya isa soo dhiibaye isaguna inuu isdhiibka aqbalo. ergeyga loo doortay waa ergey gaar ah oo afka carbeed ku hadla laakiin masiixiya. waa wadaad carbeed oo qisiisa oo yacquubi la yidhaahdo. ninka kani dhowr shayba wuu loo doortay. kow waa nin af carabi ku hadlayo ay isfahmi karayaan alkaamil alayuubiy oo waxa laga rabo u sheegi kara, isla markaana dee xarbi nafsiga samayn karoo sheegi kara tataarka iyo xooggooda iyo intay leegyihiin iyo waxay dad soo laayeen iyo bahala cuninayiin iyo niman aan xaggooda dee la eegi karin inay yihiin nin sharxi kara weeyaan. waa marka labaadee waa nin masiixiya. nin masiixinimadani macno kaley samaynaysaa marka kanoo waxaa la rabaa in la tusiyo qoladan muslimiinta ah kristanka iyo dowladda tataarkii inay wada socdaan oo qadiyaddaana fahmo. weliba maya faarqiin meeshan la yidhaahdo iyo gobolkan uu ka talinaya alkaamil moxamed alayuubi, dowladaha ku hareeraysani dhanka bariga armeniya ka xigta oo boqortooyo kristan markaa ah. dhanka waqooyiga waxaa ka xigta kurj waa georgiya oo iyana ah dowlad masiixiya. maadaama labada dhinace kaleba ay ka xigaan labadan dowladood, xagga hoosena oo weliba junuub sharqiyana dee badrudiin lu'lu' baa ka xiga waa muusal oo isna waa ninkii hore ee xagga kan tegayey. dhanka waqooyi galbeedna waxaa ka xiga labadii nine kale iyana dowladda u yimi ee kaakows iyo arsalaan, labadii boqortooyo kale ka xiga. markaa wuxuu ku jiraa xero dhammaanteed ah xilfiga holaako.